halkan aan ku suganahay waa xarunta Excel Energy ee magaalada St Paul ee caasimadda gobolka Minnesota waxaana gudaheeda ku sugan kumanandada iyagoo halkan ay ku bacaynayaan cunno ay ku deeqday hay'adda Feed My Starving Children oo ay bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ku dhaqan weydiisteen in ay abaaraha waddanka Soomaaliya ka jira gacan ka geystaan oo ay ugu deeqaan cunnooyinka nafaqaysan oo ay alaaba ku gargaaraan wadamada ay abaaruhu ka dhacaan ee qaaradda Afrika. dadweynaha goobta isugu yimid ayaa mar kasta oo ay halbaa ka buuxiyaanba gacmaha kor u taagay iyagoo farxad muujinaya isna dhiiri gelinaya. dadka sida mutadawacnimada u bacaynaya cunnada loo dirayo Soomaaliya ayaa isugu jiray caruur aad u daayar, dhalinyaro iyo duqay. waxaana dadka goobta joogay ka mid ahaa Andy Carr oo ah madaxweyne ku-xigeenka hay'adda Feed My Starving Children oo ah hay'ad laga leeyahay gobolka Minnesota. waxaana VOA u sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in bulshooyin kala diin iyo kala isir ah ay hal goob isugu yimaadeen iyagoo gacan u fidinaya abaarta dad iyo dunyaba waxyeelaysay ee ka jirta Soomaaliya. Mr. Andy Carr ayaa xusay inay hore Soomaaliya ugu direen cunnadan hadda la bacaynayo oo kale. horey ayaannu u dirnay raashinkan oo kale. saaka ayaana naloo sheegay in kunteynaradii ay ku jireen ay magaalada Muqdisho gaareen. raashinkan bacaysani waa la qaybiyey waxaana ku jira fitamiin iyo nafaqo caafimaadka u soo celinaya dadka ku sugan gobollada ay abaartu saamaysay. cunno bacayntan oo socon doonta ilaa iyo maalinta Isniinta ayaa la filayaa inay si mutadawacnimo uga qayb qaataan dad gaaraya 30,000 oo qof oo waqtigooda iyo xooggoodaba ku tabarucaya. Nimco Ahmed oo ah madaxa hay'adda taakulaynta naafada Minnesota oo ay hay'adda Feed My Starving Children ka wada shaqeeyeen dhowr kunteenar oo cunnaha oo loo diray Soomaaliya ayaa iyada iyo caruurteeduba waxay ka mid ahaayeen bulshadii barnaamijkan ka qayb qaadanaysay. وجد ما تسس عيالك يرجع للصبحية المية الولادة على الصبحية علماء على الصبحية ماش وحكى مقال مجرى ما أنت I'm really excited. Soomaalida gobolka Minnesota ayaa kaalin muhiim ah ku lahaa dadaaladii qurba joogta Soomaalidu ay ugu gurmanayeen abaaraha Soomaaliya waxa ayna shalay si aad uga soo muuqdeen goobtii cunnada loogu bacaynayay Soomaaliya. qaarkood ayaa ila wadaagay sida ay u arkaan isu soo baxan loogu gurmanayay abaaraha Soomaaliya. magacayga saddexan waxa la yiraahdaa Xakiim Cilmi Cusmaan waxaan ka socdaa organization Fairview Ebenezer. waxaan aad laakiin maanta ugu faraxsanahay arrintan oo ah arrin si khaas ah Soomaaliya loogu sameeyo. ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan kula dardaarmi lahaa especially Minnesota qofkii time yar haysta 2 saacadood kaliya waxba kama dhimayso inay yimaadaan oo ay waajibaad ina saaran weeyaan ay dadkeenu wax u qabano dadka waddankan la deganna aynu tusno in aynu nahay dad mujtamaca ugu shaqayn karaya si volunteerina ama sida waxa la yiraahdo iska wax u qabso. magacayga waxa la dhahaa Saciida Xasan. maantana waxa waaye waa maalin oo farxad ah Minnesota hadaan nahnay dad isku duwanayaan nahnay dadkaana way dad noo soo baxeen maanta markaynu siinayeen training waxaynu ugu dhahaan Soomaali hadday Soomaali magaaladan ku nooshay waxayna weydiistaan caawis anakan waan u soo baxnay since ay yihiin ay ka mid yihiin dadka state-keena. kasoo koo gurmadka wadajirka ee loo fidinayay Soomaaliya ayaa haddana waxaa goobta aad looga dareemayay isu soo dhawaanshaha bulshooyinka wadadaga gobolka Minnesota waxaana Soomaalidu tallaabooyinka noocan oo kale ah u arkaan